soo dhawaada asxaabta, waa mar kale iyo muuqaal kale. Muuqaalkan kooban waxaan rabaa inaan idinkaaga faa'iideeyo sida aad kula socon lahayd battery percentage-kaaga taleefanka, ama sida loo furto ama layskaga xiro. Waan ogahay inaa badankiin taqaanaan, balse waxaan rabaa inaad sii gaarsiisaan dadka kale ee aan weli fahansaneen istaraatiijiyadan. Haddii aad ka mid tahay dadka fahansan ama fahansaneen, fadlan hanaga iloobin like-ta iyo share-ta. Mahadsanidin. Aan idinku wareejiyo walaalkay Cabdalle oo halkan idinkaaga sii ambaqaado. Soo dhawow Cabdalle. Thanks mudane. Aan gudaha u galna muuqaalkeena. Aan idin xasuusiyo wadada aan mari doono waa mid aad u kooban. Marka hore waxaan galaynaa settingka taleefanka. Laba meel ayaa ka geli karnaa. Intayna ka galno sidoo kale qaybta koramka soo jiidno inaan ku dhufano calaamadaas. Labadaas qayb ayaa looga galaa settingka taleefanka. Kadib waxaa imaanaysaa qodobka saddexaad ee ku qoran yahay notifications. Aan ku dhufano. Kadib kor u jiideena ilaa aan ka tagno advanced setting. Meeshaan waxaa aragtaa qodobka labaad show battery percentage. Qaybtaan u socno waa meeshaan inaad active ka dhigto ama inaad disable ka dhigto. Haddii aad disable ka dhigto battery percentage-keeda ma kusoo muujin doono. Laakiin haddii aad active ka dhigto percentage-ka battery-gaada waa arki doontaa ama waad arki kartaa inta uu marayo. Sidaas ayaa loo saartaa la iskana qaadaa battery percentage-ka taleefankaada. Muuqaalkeena halkaas ayuu ku egyahay. Nabadino.